maanta mawduuceena waxaanu kaga warramaynaa sheekadii kun habeen iyo habeen oo aan jeclahay inaad badinkani akhrisateen amaba aad dhegaysateen inagoo aan kusoo koobi karno muuqaalkan gaaban. haddana waxaanu ka warramaynaa xog ku saabsan oo aan jeclahay idin wax badan idinka iftiimin doonto sheekadaas. haddaba sheekadan waxay ka mid tahay sheekooyinka ugu dhaadheer adduunka uguna caansan ee la qoray, inagoo ka warrami doona run iyo been waxay tahay iyo xilliga la qorayba, sidoo kale meesha ay ka dhacday iyo weliba luuqadaha u badan ee lagu turjumay adduunka. inagoo ka bixina xog gaaban oo ku saabsan sheekada. waa sheeko la isku khilaafay asal ahaan halka ay kasoo jeedo. dadka qaar waxay qabaan inay kasoo jeedo boqortooyadii Saasaan ee xukumi jirtay Hindiya iyo Sindi, halka dadka taariikhda wariya qaarkood kalena ay leeyihiin waxay ka dhacday Ciraaq. sidoo kale waxaa la sheegaa inay ka dhacday Masar, xitaa Yahuudda waa lala xiriiriyaa. laakiin arrinka xaqiiqda u dhow ayaa waxay tahay boqorka ay sheekada ku socoto ee Shahryar inuu xukumi jiray meelo Aasiya ka mid ah. sheekada waxaa ku jira qisooyin badan oo aan caadi u naqaano, sidii qisadii Calaauddin iyo faynuustiisii yaabka lahayd. waxaa kaloo ka mid ah sheekadii Cali Baaba iyo 7 safar ee badmaaxii weynaa ee Sindibaad. ilaa iyo hadda lama yaqaano qofkii asal ahaan sheekadan qoray, laakiin casrigii dahabiga ahaa ee khilaafadii Cabbaasiyiinta ayaa sheekadan lasoo turjumay markii ugu horreysay. sidoo kale waxaa Ingiriis loo turjumay sanadkii 1704. ma jirto luuqad caalami ah oo aysan sheekadan ku qorneen, waana sheekada loogu akhriska badan yahay adduunka, waxayna ku turjuman tahay luuqadaha sida Carabi, Ingiriis, Talyaani, Faransiis, Greek, Spain, Portugal, Germany, Sweden, Denmark, Russian, Scotland, Poland iyo Hungary. xitaa Soomaali ayay ku qoran tahay. sidoo kale waxaa laga sameeyey filimaan iyo musalsalaad caan ah. waxaa xaqiiqo ah inuu jiray boqor Shahryar iyo xaaskiisii Shahrazad, laakiin waxaa la isku khilaafay in sheekooyinka meesha ku qoran oo ay ka sheekeynayso Shahrazad inay run yihiin iyo in kale. waxay soo badan yihiin in qaarkood yihiin sheekooyin khiyaali ah oo hab aad u macaan, si farshaxan lehna loo qoray, sida sheekada Cali Baaba iyo sheekadii badmaaxii weynaa ee Sindibaad. sidoo kale sheekadii xamaaligii iyo gabdhihii. waxaa kaloo ka mid ah sheekadii boqor Yoonaan iyo ninkii xakiimka ah ee Rooyaan la dhihi jiray. waxaase ku jira sheekooyin xaqiiqo ah, sida sheekooyinka ay ka warinaysay boqorkii caadilka ah ee Haaruun al-Rashiid.